Bismillahirrahmanirrahiim daawadayaal kulanti wacan meel badunida dacalada ka joogtaan halka nagala socotaan barta YouTube-ka cala soonta Farpost iyo Facebook-ga taariikhda 15 bishii 9 2023 qodobada wararka caalamka kooda ugu dooran ayaan dul istaagaya waxa kamid ah madaxweynaha dowladda Belarus oo booqasho rasmi ku tagay maanta ee wadanka Russia madaxweynaha dowladda Kuuriyada Waqooyi John Yoon ama Kim Yoon oo asna booqashadiisa rasmiga ah ku joogay dalka Russia maalmahan ayaa wali sii wata indhaynta iyo booqashooyinka ku jooga xarumaha tiknoolajiyada kala duwan sida qeybaha dayax gacmeedka iyo qaybta soo saarida diyaaradaha oo maanta uu ku tagay kormeer bariga fog ee dalka Russia daawadayaal sidoo kale wararka waxa kasoo qaadan doona dowladda Russia oo soo bandhigtay hub casri ah sidoo sheegay wasiirka gaashaandhigga maanta Telegramkiisa soo dhigay taangiga casriga ee magaciisa la yiraahdo T90 ayaa dowladda Russia shaqo gelisay taangaas oo aad maartay mucjiso ah si automatic ah maartay qoryaha loogu asoo isku caabiyaan meesha hubka la gelin jiray ama gumaacyada sidoo kale daawadayaal dowladda Russia waxay soo bandhigtay diyaarada helicopter ah oo sida qumaatiga u kaca iyo gaariga maartay ay ku xiran yihiin gantaalada madaafiicda dhaardheer ee maartay magaciisa la yiraahdo Uragan waxyaalo noocaas ayaan kusoo qaadan doonaa wararka dagaalka Ukraine oo meel xasaasi maraya iyo Ukrainiinta guul sheeganaya laakiin waxa guusha buunbuurinaya saxaafadda reer galbeedka daawada sidoo kale waxa ku soo qaadan doonaa warka Kim Jong Un booqashadiisa oo maartay aad u xiiso badan saxaafadda caalamka maalmahan ay dul istaagasay in muxuu la kulmay dalka Russia maxaa farax geliyay madaxweyne Kim Yoon oo soo jiitay sida darada daawada meel ba joogtaan wayna la shargareysaan barnaamijkan asxaabtiina la wadaagtaan hadda waxa ku soo dhawaataan qodobada wararka kooda ugu doorana ayaan dul istaagayaa waxaan ku bilaaban doonaa madaxweynaha dowladda Belarus Alexander Lukashenko booqashada ku tagay dalka Russia iyo dhigiisa oo la kulmay maanta madaxweyne Putin maxay ka wada hadleen madaxweyne Putin muxuu ku yiri Lukashenko tahay daawada waxaan dul istaagayaa hadda wada hadalada u dhaxeeyay madaxweyne Putin iyo Lukashenko Putin ayaa soo qaatay hadalkan si saxaafadda qodhay TV-ga RT-ga Russia laga leeyahay intii lagu guda jiray wada hadalada uu la yeeshay dhigiisa Belarus madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu ku nuuxnuuxsaday in ka badan 300,000 oo qof ay saxiixeen qandaraasyo ayna si mutadawacnimo ah ugu biirayaan ciidamada qalabka sida dalkaas isagoo sharaxay in Ruushku uusan u baahnayn inuu ku marti qaado qolo saddexaad si ay uga qayb qaataan colaadda Ukraine si ka duwan dhinaca kale madaxweyne Putin warbixintiisa daawada halkaas aan ku joojinayna haddana waxaan dul istaagayaa madaxweynaha North Korea iyo warbixintii aan ka diyaariyay daawada hadda waxaan dul istaagayaa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa fursad u helay inuu kormeero xarumaha Ruushka ee tiknoolajiyada diyaaradaha dagaalka intii lagu guda jiray booqashadiisa bariga fog ee Ruushka talaadadii Kim wuxuu la kulmay madaxweynaha dowladda Russia Vladimir Putin waxaana la siiyay booqasho uu ku tago xarumaha soo saara diyaaradaha warshadahaas oo maanta la geeyay madaxweynaha dowladda Kim Jong Un shirkadda United Aircraft Corporation Kim waxa uu awooday in uu arko dagaalyahanada Ruushka ee kicinaya diyaaradaha Sukhoi 35 iyo Sukhoi 57 wax soo saarka uu daawado duulimaadka Sukhoi 35 waxa kale oo uu awooday inuu daawado dhismaha Sukhoi Superjet 100 oo ah diyaarad rayid ah Kim waxa socdaalka ku heliyay ra'iisul wasaaraha Ruushka Denis Manturov iyo gudoomiyaha gobolka Mikhail Degmyarov daawadayaal dowladda Russia waxay go'aan ku gaadhay dowladaha saaxiibada ee la tahay sida Iran iyo North Korea waxyaalaha ay u baahan yihiin iyo tiknoolajiyada u baahan yihiin inay ka caawiso haddii ay beedmo ayaguna waxay hayaan oo kale tiknoolajiyada yararka ay hayaan sida drone-ka iyo hubka noocyadiisa kala duwan inay ku soo xaaraan dalkaas oo sababtoo ah dagaal ayaa ku socda maalintii waxaa baxda kumanaan ama malaayiin rasaas ayaa dhacda ama qoryaha fudud ka dhacda ama gawaarida gaashaaban madaxweyne Kim Jong Un oo booqashadiisa wata ilaa hadda wuxuu ku faraxsan yahay booqashada ku jooga dalka Russia waxyaalo badan ayaan la tusay tiknoolajiyad maartay dalka North Korea ka maqan sida North Koreanka waxa ka maqan dayax gacmeedka dhowr xabay direen sanadkan gudihiisii kii horeba wayna ku fashilmeen hadda waxaan dul istaagayaa daawadayaal taangiga casriga ah TV-ga dalka laga leeyahay daawadayaal Russia magaciisa la yiraahdo RT marka la soo gaabiyay ayaa soo bandhigay taangigan casriga shaqaalaha taangigan T90M Ruushku sameeyo nooca ugu dambeeya casriga ah
ayaa dab qabadsiiyey farasiimaha ciidamada Ukrainiinta iyadoo uu socdo howlgalka gaarka ah ee militariga. Daawadayaal, taangigan waa taangi casri ah, wuxuuna kaga duwan yahay taangiyada kale. Waa taangi automatically fuuq isku gelinaya, gumacyada isku gelinaya meesha lagu gurin jiray oo dad ay ku gurin jireen, intaasoo shaqaale ay saaran jireen. Hal operator ayaa la socda iyo maaragtay assistantkiisii. Marka aad buu maaragtay casri u yahay. Waa taangi is qaboojinaya kuwa challenge-ga Ingiriiska iyo kan Jarmalka Leopardka ay dhahaan Leopard, kuwaasoo dhan uu ka casrisan yahay. Abrahamkaba aad buu maaragtay dagaalka wax uga bedelay, waxaana dagaalka hadda ku jiraa muddo hadda gaaraysa bil iyo bar. Kan laakiin nooca hadda la soo geliyay waa nooca ugu dambeeyay latestiga oo maaragtay computeristka ku shaqeeya. Aad buu u dheereeyaa dhiiqada iyo dhiiriga iyo maaragtay dhulka bacaadka inta uu ku soconaya, dhulka dhagaxunta iyo buuraha inta uu jiiraya iyo dhulka hawdka. Taangigan casriga daawadayaal, intaas warkii soo baxaan. Hadda helicopterka ayaan dul istaagana noocan casriga ah. waa tahay daawadayaal, shaqaalaha diyaaradda qumatiga u kacay ee ciidamada Ruushka oo wata ciidan shaqo oo muhiim ah oo ka kooban Ka-52 iyo Mi-28 Night Hunter. Diyaaraddan waxaa la yidhaha magaceeda Night Hunter baa la yidhaha. Habeenkii ayay maaragtay wax ugaarsataa oo la howlgeliyaa. Waana helicopter casri ah oo dagaalka waxyaalo badan ba hadda ka bedeshay. Wiigan ay soo gashay, waxaana la soo dhigay barta Twitterka ee wasiirka gaashaaniga dowladda Russia Sergey Shoigu iyo TV-ga RT-ga labadaba oo soo dhigeen maantay. Diyaaraddan waxaa la leeyahay waxay burburisay dhufaysyada iyo baabuurta gaashaaman ee ciidamada Ukraine. Wax badan ayayna ka bedeshay tacticada dagaalka. Aad bayna maaragtay ugu qanceen ciidamada dowladda Russia iyo taageerayaashooda. Hadda daawadayaal, waxaan dul istaagayaa gaariga muddada dheer dagaal ku jiray. Waa tahay daawadayaal, hadda waxaan dul istaagaynaa gantaalka ay ka dhacaan gaarigan. Magaciisa waxaa la yidhahdaa Uragan, wuxuuna ka dhacaa gantaaladan la yidhahdo Launched Rocket System MLRS ayaa weeraro ka fuliyay dhanka hore ee Donetsk inta lagu guda jiray howlgalka gaarka ah ee militariga. Gaarigan daawadayaal waxaa ka dhacaya gantaalada fogfog sida maaragtay meelaha ay loogu talagalay inay ku dhacaan 70 kilomitir ilaa 80 ilaa 100. Hadda waxay ku xiran tahay adjustment-ga lagu xiro goobaha cawdigu fadhiyo ama sahayda u taalo ama ciidamada kale oo maaragtay gurmadka ay u fadhiyaan ama goobahan dagaalku ka socdo ilaa 30 kilomitir 40 ka 25. aad buu maaragtay waa ciidamada Ruushka gaarigan u caawiyay inkastoo reer galbeedkiisa haysanka Mareykanka waa iska nooc yar maaragtay waxba qaban waayay Ruushyaankan Free Systemkiisa oo dhan uu ka baxay.